soo dhawaad warnay Soomaali TV aad baan ugu dhaweey walaal saad u aragtaa xariga loo geystay Cabdimaalik Muuse Coldoon wallahi aad baan ku salaamayaa cibaaday adiga iyo janankaaga waa Cabdimaalik kulay waa qof muwaadin oo reer Soomaaliland qofkuna markuu reer Soomaaliland yahay kulay uu ka hadlayaa xorriyadda qowlka iyo wixii uu la muuqda inuu ku saxan yahay wax ma garanaysaa ka hadli karaa wixii uu qalad u arko marka waan ka xumahay in xiriir suxufiga weyn waa soo fiicana in ma garanaysaa sheekh oo diinta islaamka oo walaaleeya dadka samafalka ka shaqeeya weeye dad badan oo uu taakuleeyo oo ku xidhan oo imika daade oo caawiya ayaa jira marka waxaan leeyahay dowladda Soomaaliland waxaan ugu baaqayaa madaxweynaha inuu si degdeg ah xorriyadiisa ugu soo celiyo Cabdimaalik Muuse Coldoon maxaa yeelay waa nin muwaadin ah waa nin maaha khalad waxa uu galay maaha khalad wuxuu ka hadlay in demokrasiga afkaartiisa iyo wadaadiisa uu dhiibtay aad baan ugu codsanayaa madaxweynaha inuu sii daayo Cabdimaalik Muuse Coldoon xorriyadiisa inuu soo celiyo aad baan ku salaamayaa waray soo dhawaalaano maxaa ka jawaabaadii su'aal baa ku diinaya saad warta xariga Cabdimaalik Muuse Coldoon loo geystay yaa xariga Cabdimaalik Muuse Coldoon loo geystay saad aragtaa naan xarig garamaaye ku soo dhawaad warnay Soomaali TV walaalun ku dhawey qaali magaca Soomaali TV ba magacaaga walaal aniga sheekh beledka dhalinyarada Soomaaliland balad waayahay su'aal baa ku diinaya saad u aragtaa xariga loo geystay Cabdimaalik Muuse Coldoon wallahi horta xariga Cabdimaalik Muuse Coldoon horta walaal qaali agtii joogsan wada mar bicayb la kulantaa ay Soomaalidu tiraahdaa Cabdimaalik uu ka badbadiyay qofkuna marka uu ixtiraami waayo aabaha marka ixtiraami weydo madaxweyne Muuse waa aabihii dalka waxa weeye isagii baa hadlay inuu ka daba hadla meeheen marka Coldoon waxaan leeyahay xarigani dan xitaa isagoo maaha xaasi caruur buu leeyahay 9 jeer oo hore la xidhay inay may ahayn xitaa badahan buu galaba waxaana wadankan dawladdu dooranay Soomaha walaalo dawladdu dooranay madaxweyne lana sharci baa lana wasiiraan lanahay xukuumaddu waxaan hadii og tahay iyo hadaan ogan xukuumaddu xil saaran marka shaqaan lahayn buu galay waxaad leedahay marka Cabdimaalik baa qaldan walaala qaali horta ma qaldama waa ilaahay malaa'igtiisa bilaadunkuna waa qaldaan Cabdimaalik boqolkiiba boqol walaala qaali aad doorta raayigaaga fiican iyo su'aashaada bootigaaga soo faraxsanay wuu khaldan wuxuu ku khaldan yahay walaalo wax caadi ma inuu miyir qabo iyo inuu caadi inuu waalan wallahi ma kala garanayaba because waxaan dantiisa baa inuu ka hadlayaa maxaa u diiday xitaa inuu waxyaalo kale ku jiro ayaa halka ka cad wax kale aaminsan fikir buu iibinaya ninkani marka in la qabto istaahil baad fikirka laga hortago iibinaya waa mahadsantahay walaal ku soo dhawaalaano nin Soomaali aan dhawaay walaal magacaaga Cabdulle saad u aragtaa xariga loo geystay Cabdimaalik Muuse Coldoon wallahi xariga loo geystay Cabdimaalik Muuse Coldoon Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon waa xarig xaq darraa baan leeyahay waayo wax xaqiiqa uu ka hadlayay marka waxaan leeyahay dawladdu Muuse bixi gardarraad ku xidheen ninka soo daay waa mahadsantahay walaalo ku soo dhawaad walaalo 90 ku dhawaad magacaaga waa barnaamijyo su'aal baa ku weydiinayaa sidaad u aragtaa xariga loo geystay Cabdimaalik Muuse Coldoon waxaan u arkaa inuu arrin aad iyo aad uga xun Cabdimaalik Muuse Coldoon wuxuu ka hadlay wax jira oo xaqiiqa ayuu ka hadlay marka waxaan leeyahay Cabdimaalik Muuse Coldoon xaq buu ka hadlay xaqana in la qariyo maaha in la sheego weeye madaxweyne Muuse bixina waxa uu ma dhaadana isagoo meesha uu fakaysto saacado kooban u joogay qof saacado kooban tigay meeshana wax badan wixii ka jira iyo waxyaabo kale toon ogaamay si wax ku ogaanayaa waa laga qarinayaa isaga waxyaabaha ka jira waxa lagu garanayaa inay waxyaabahaas khalad yihiin haweenidii waxaas falka dimiyeedka lagu eedeeyay shalatoole waa tii markiiba ka dhooftay dalka haddaanay waxba jirin ama xaqiiqada aanay ka hadlaynin shalatoole ay dalka ku sii nagaalan lahayd waa mahadsantahay walaalo ku soo dhawaad nin Soomaali dhawaay walaal waxaan ku weydiinayaa su'aal saad u aragtaa xariga lagu la kacay Cabdimaalik Muuse Coldoon su'aal oo weydiin kartaa Cabdimaalik Muuse saad u aragtaa xarigiisa ya Cabdimaalik Muuse xarigiisa saad u aragtaa marka xarig waa mahadsantahay walaalo daawadayaal intaas waxa lagu soo dhamaaday barnaamijkeennii rayiga dadweynaha oo si toos ah ugu dheehanaysan TV-ga caalamiga ah TV xarunta iskuulay magaalada Burco waxaan la socodsiinaysay anoo Cabdiqani Maxamed inta barnaamijka ku kulmayna waxaan kaga tegnaa sidaas iyo fi amaanillah